kulanti wacan daawadayaal waxaan ahay Mawlid Xaaji ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya. xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Beledweyne iyo ciidamada dawladda oo bandow ku soo rogay magaaladaasi. wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Beledweyne ayaan idin hayaa. wafdi hordhac u ah madaxweyne Cali Guudlaawe oo gaaray magaalada Beledweyne xilli maanta la filayo in Cali Guudlaawe uu tago magaaladaasi. warar ayaan idin kaga hayaa. General Xuudna waxa uu ka digay in madaxweyne Cali Guudlaawe uu tago magaalada Beledweyne isaga oo sheegay in dhibaatada ka dhalata mas'uuliyadeeda uu qaadayo Cali Guudlaawe. qodobada kale ee warkeena waxa kamid ah wiilkii laga soo saaray godkii uu 5 maalmood ku jiray oo geeriyooday. warar ayaan idin kaga hayaa. madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed oo ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa. waa Axad 6 Febraayo sanadka 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi. aynu ku bilowno warkeena. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa goordhow ka qaraxay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Gorgor iyo ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Cali Guudlaawe oo isku dhinaca iyo ciidamo uu hogaaminayo sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere. dagaalka ayaa si gaar ah uga socda garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne waxaana uu yimid kadib markii saacado ka hor ay ka degeen ciidamo iyo wafdi hordhac u ah safarka madaxweyne Cali Guudlaawe uu ku tagayo magaaladaasi. sidoo kale waxaa goordhow duqeyn lagu garaacay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne oo la filayo in maanta uu ka dago Cali Guudlaawe oo dhawaan lagu qanciyay in magaaladaasi awood ciidan lagu geeyo. dagaalka oo xoogiisu uu hadda ka socdo garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ayaan la ogaan karin khasaaraha uu geystay maadaama uu socdo. ciidamada dawladda ayaa magaalada Beledweyne waxa ay ku dileen wiil yar oo kamid ah kooxaha kacdoonka wada taasi oo xiisada sii cuslaysay. wixii ku soo koray dagaalka hadda ka socda magaalada Beledweyne wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xaalad kacsanaan ah kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in socdaal uu ku tagayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi ka raacaya magaalada Jowhar. xaafadaha Kooshin iyo Xawataako waxaa lagu arkayaa ciidamo wata gaadiidka dagaalka waxaana ay joojiyeen dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaarida. ciidamadan waxaa laga soo saaray xerada Lamagalaay sida ay xaqiijiyeen ila kala duwan. qof kamid ah dadka Beledweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada xoogooda ay soo bilowdeen xalay waqti dambe kadib markii xaafadaha qaar lagu dhex arkay ciidamo hubaysan oo xiray wadooyinka muhiimka ah. ciidamo wata gaadiidka dagaalka ayaa jiray wadooyinka qaar waxa ay joojiyeen gawaarida xaafadaha Kooshin iyo Xawataako. ma garanayno sababta ka dambaysa balse waxaa la hadal hayaa in uu Beledweyne ku soo wajahan yahay madaxweyne Cali Guudlaawe iyo in ay abaabul wadaan dadka diidan safarkiisa ayuu yiri qof kamid ah dadka Beledweyne. magaalada Beledweyne waxaa 26 Janaayo ee sanadkan laga dejiyay ciidamada gaarka ah u tababaran ee Gorgor iyo Haramcad. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa si cad u sheegay in askartaasi ay ka dalbadeen Villa Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya ayaa 27 Janaayo ka hortimid qorshaha ciidankaasi lagu geeyay Beledweyne. ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi wasiir ah oo uu hogaamiyo u yahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. wafdigan ayaa shalay tagay magaalada Jowhar waxa ay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay kala hadleen ka hortaga dagaal ka dhaca magaalada Beledweyne waxaana maanta lagu wadaa in wafdigan uu u gudbo xarunta gobolka Hiiraan. warar aan hadda heleyna waxay sheegayaan in diyaarad siday ciidamo iyo wafdi hordhac u ah safarka madaxweyne Cali Guudlaawe ay hadda ka degtay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. wafdiga ayaa u badan xubnaha borotokoolka Cali Guudlaawe iyo qaar kamid ah ilaaladiisa gaarka ah iyada oo si weyn maanta magaalada Beledweyne looga dareemayo safarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. 8 goor oo hore ayuu madaxweyne Cali Guudlaawe isku dayay inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan balse waa laga hor istaagay. hase ahaatee safarka maanta uu qorsheenayo inuu magaaladaas ku tago ayaa noqonaya kii 9aad oo haddii uu guuldareysto ka dhigan in aan doorasho lagu qaban doonin magaalada Beledweyne. dhinaca kale General Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa ka digay in magaalada Beledweyne xoog lagu geeyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. General Xuud oo xalay xili dambe shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xasilooni darro laga wado magaalada Beledweyne taasi oo uu sheegay inay tahay in laga digtoonaado. waxa uu dalbaday in dib loo celiyo ciidamo uu sheegay in lagu soo daadiyay magaalada Beledweyne miiska wada hadalkana la isugu yimaado.
magaalada beledweyne ayaa deganayd maalmihii la soo dhaafay kadib kacdoon hubaysan oo 10 maalmood ka hor ay ku dhaqaaqeen maleeshiya hubaysan oo ka soo horjeeda tagista magaaladaasi ee Cali Guudlaabe. mar uu tagista madaxweyne Cali Guudlaabe ee beledweyne uu ka hadlayayna waxa uu Generaal Xuud yiri shalay waxaan diidnay in Cali Guudlaabe uu beledweyne tago, maanta oo aan Muqdisho joogana waan diidanahay. wax wada hadal ah oo ina dhexmaray ma jiro, marka sidee ayaa noogu imaan kartaa ayuu yiri. generaalka ayaa sidoo kale u digay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen isagoo u sheegay inuusan marnaba ku dhiiran karin tagista magaalada beledweyne. Generaal Xuud waxa uu intaasi ku daray inuu xaq ka maqan yahay dadka reer Hiiraan, Hirshabeellena ay qaadaceen wax laga xumaadana waxa uu ku tilmaamay in ciidan la dulgeeyo magaalada, taasi oo uu sheegay in dhibaatada jirta ay uga sii dari doonto. rajo xumo iyo niyad-jab ayuu ku soo gabagaboobay howlgalka waqti badan qaatay ee lagu soo badbaadin rabay Rayaan Khalid Oram oo ah 5 jir u dhashay dalka Morocco kuna dhacay ceel dhirirkiisu gaaraya 32 mitir. boqortooyada Morocco ayaa ku dhawaaqday inuu dhintay saqiirka ku saxariiray godka uu ku dhacay oo uu ku go'doonsanaa tan iyo talaadadii toddobaadkii hore 1 Febraayo 2022. boqor Maxamed Kalaxaad ee Morocco oo la hadlay waalidka Rayaan ayaa u tacsiyeeyay. dunida oo dhan waxa ay la socotay howlgalkan baaxadda weyn. kooxda gurmad ka samaysay ayaa welwel ka qabay sida uu Rayaan ku heli karo neefta macmalka ah inta u dhaxaysa godka laga soo saarayo ilaa gaariga loo diyaariyay in lagu geeyo isbitaalka. Rayaan waxa iska dhalay Khalid Oram iyo Wasiima Qarsheesh. qoyskan ayaana degan magaalada Tamarot oo dhacda waqooyiga Morocco. markii ugu horeysay ee rajo laga muujiyay noloshiisa waxa ay ahayd kadib markii kaamirooyin lagu riday ceelka ay soo qabteen muuqaalka wiilkan oo nuuxnuuxsanaya. waalidkiisa kama aanay tagin godka oo waxa ay rajo ka qabeen in uu dib ula midoobo maadaama indhahooda ay ku arkayeen dad badan oo isugu soo baxay sidii ceelka looga soo saari lahaa Rayaan Khalid ilaa laga xaqiijiyay inuu geeriyooday. saraakiisha caafimaadka iyo kuwa kooxda gurmadka degdega ah ee howlgalkan iska kaashaday ayaa saacado ka hor inta aan la shaacin geerida Rayaan waxa ay rajo geliyeen dadka la socday dhacdadan oo waxa ay tilmaameen in ay ku dhow yihiin soo afjaridda howlgalka. waxaa la soo tabiyay in wiilka yar uusan wax cunin waxna cabin muddo 5 maalmood ah. sidoo kale khubarada caafimaadka ayaa ka walwalsan in maadaama ceelku uu ku dhacay uu aad u dheer yahay ay dhaawacyo gaareen. heerkulka gobolka ayaa gaara heer aad u sareeya oo noqon kara 40 digrii ilaa 50 digrii, taasoo dhibaato weyn ku noqonaysa qof god ku jira. ceelkana ayaa u samaysan god aad u dhuuban oo qof caadi ah uusan geli karin, wuxuuna ka duwan yahay qaabka loo qodo ceelasha Soomaalida. dhulka oo buuraley ah ayaa adkeeyay shaqada gurmadka. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan Addis Ababa kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labageysoodka ah iyo horumarinta iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada amniga, ganacsiga, dhaqaalaha, daris wanaaga iyo horumarka iyo xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika. madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo waliba dagaaladii lagu hoobtay ee ka dhacay Itoobiya iyo dhibaatada loo geystay TPLF. Abiy iyo Farmaajo ayaa rajo ka qabay inay xafiisyadooda iska sii joogaan, balse labadaba waxa ku dhacday in mucaarad hubaysan ay ku kacaan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa uga qayb galaya shirkii 35aad ee madaxda midowga Afrika, kaasi oo shalay ka furmay magaaladaasi loogana hadlayo xaaladaha ka soo cusboonaaday wadamada Afrika. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixday dhigiisa dalka Rwanda. is-afgaradka ay kala saxiixdeen labada wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya iyo Rwanda ayaa ku saabsan horumarinta iskaashiga labada dowladood iyo xoojinta xiriirka labageysoodka ah ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga, sayniska, farsamada iyo iskaashiga dhaqanka. sida ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, heshiiskan ayaa dhinac socday shirweynaha midowga Afrika ee shalay ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Rwanda ayaa ka mid ah dowladaha ugu muhiimsan Afrika ee looga dayan karo dib markaasi u dhiska dal burburay
ama dirir sokeeye ay ka socoto maadaama dalkaasi uu hadda si buuxda uga soo kabtay qaranjab xoog leh oo ku dhacay kadib markii ay islaayeen qowmiyadaha ruwaandeyska ah ee ku wada nool dalkaasi. wararkaasi ayaa ugu waaweynaa Soomaaliya xilligan inta ku kulmi doono wararkeena soo socda. nabadgelyo.